taariikhdii dheereed oo dhowrka boqol oo qarni ahayd markaan ka imaado tii 77 burbur iyo halaag badanaa ka dhashay tii Mala Zanaawi ee maxaan ku raadaay 2006 iyona wixii ka dhacay wixii ka burburkii halaaga ka dhacay waa la ogyahay ra'iisul wasaarihi waagaas jooga Mala Zanaawi waa ogtihiin ciidamadiisa ilaa magaalada Muqdisho ay ka yimaadeen dagaalkii ka dhacay dhibkii ka dhacay meeshii markii dambe ay ku dambeysay waa la wada garanayaa burbur iyo halaag badan ka bacdi waa laga soo kabtay waa laga soo noqday waxaas khaladay ahayn yaa loo noqonina la yiri waa hore loo socdo hadda marka ay Soomaali ugu rajo rooneed oo ay cageeda isu soo taagi rabtay dad badan ayaa jira dunida oo annaga dhaxdina Soomaalideena ku jira oo dagaalku uu u sahlan yahay oo aan ka baqin oo ku dhiiran laakiin nabadda ka cabsada oo ka baqa oo balaayo kale inay soo baxayso awoodiisi inay weeqmayso mid kale oo aanu jeclayn oo awood ku yeelanayo nabadda dad badan oo sidaas oo arkaa jirto maanta haddana ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo xukuumaddiisa waxay tustay Soomaaliya waa soo kabanaysaa waana soo socotaa inta aanay soo gaarin meeshii ku habboonayd hal laga faa'iideeyo oo taariikhdii fogeed oo wiligeed Itoobiya ay bad ku raadi jirtay maxaa ahaay aan ka fursad haddaan haysanaa aan ka faa'iideysano sidaasaa keentay in haddana mar kale isku dayga maanta jira uu yimaado laakiin casharadii aan soo sheegno waa meeshii ku hore ku dambeey jiray oo ku dambeynaya ha dheeraato ha waxaysanto insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa in mid disaster iyo dhiig badan iyo ku daatay iyo dhibaato ay ka dhacdo inaanay noqonin yaan rajaynaynaa laakiin waxa asalka ah waa damaca iyo fikirka noocaas ah oo waad maqlayseen in lagu hadaaqayo oo la dhahayay taariikhdii qaldantaan saxeena taariikhda qaldantay waa maxay Itoobiya inay bad heli weyday waay isku dayday qarnigii 19aad aakhirkiisii qarnigii 20aad bilowgiisii dhammaan waatan la yiraahdo ilaa balcad meel u dhawaa ciidamada Itoobiya soo gaareen ayagoo xeebta u soo socda oo dib loo celiyay haddee taariikhdaasi lama sixi karo oo sidaas lagu masixi karo haddii xataa uu la saxayana sidaas lagu masixi karo waa sheegnay 16 dal oo Afrika ayaa bad lahayn dhammaantoodna baday tagaan xoog iyo qajajac iyo muxuu ahaay dalkan ma aqoonsani iyo nusaan goosanaya iyo base muxuu ahaay ciidan badeed aan ka dhisanaya iyo kuma tagaan kumana joogaan mana dhacayso marka waxaan leenahay waa rajaynaynaa walaalaha Itoobiya in aqliga uu Ilaahay u soo celiyo laakiin ma dhacayso dhulka Soomaaliya iyo xeebta Soomaaliya ba si kastaba wax kasta duruufaha ahaadeen in qayb ka mid ah la qaataa ma soo roobiso dadka Soomaaliyeed horay ayaan ugu ballan qaadnay wax lagu bedelanayo dhulkan ma jiro annaga maanta joogna ma lihin kuwa biri imaan doona iskale kuwa shalay jooga ma lahayn way noo ilaaliyeen kuweena maanta joogna inaan ilaalinaan laga rabaa in kuwa biri iyo biri dambe biri ku sixiga joogaya ayaa iskale qof Soomaaliya oo xaq u leh ama awood u leh inuu dhulkan dhinac ka bixiyahay ma jirto taariikhdii Eritrea iyo Ethiopia waa la ogyahay heshiiskii confederationka ay gaareen iyo meeshii ay ku dambeysay Eritrea 30 sano ku qaadatay in ay la soo noqoto muxuu ahay xorriyadeedii oo dagaal iyo dhiig ah walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeyahay maxaan sariqdaas u galeynaa waa u jeednaa taariikhdii shalaaba qoranba waa loo jeedaa maxaan ugu noqonaynaa taariikhda shalay dadka qaarkiis ay ku soo hogeen iyo damacii shalay soo jiray ee la yaqiinay wax lagu bedel kara ma leh